dhumaaday waa wixii dhan way iga hormareen wajacalna meel ma kulli shay xay waa la yiri biyo wax nolol waa la yiri hadda biyo qof waliba waa ogyahay waxay yihiin أنا ماشي أنا عارف شريدهم بالعلي ما لا يلا قلت على يا جماعة نورت نك قلت على جماعة بدي قلت له يا قلت على برا وحول حين يا أولو سمرهم لا أساس أيتان واركش ويرث يديم كله ما لك ما أنت يا وبيه ولا موتور يهين oo wixii lagu soo saaray solar yihiin oo motorka qabqabtiisii laga reystay biyuhu wax walba waa ku nool yihiin qof walba waxa laga rabaa horta biyaha inuu dhaqaaleeyo Australia ayaa waa inta tagay waxa la yiraahdaa baabuurta lama ogola in tuubada lagu dhaqo waxa ku leeyahay biyaha dhamaanaya geel la leynayo hawd jooga waa aragteen geel biyuhu wala isii ku leeyahay marka meel ilaahay biyaha faqriyeedii adduunka shidaalka waxa ka daraan doona biyaha in la raadiyo anaga hoosteena wabiyaal baa jiifa mana ogin dahab baa ku jira ma ogin wax walba aan moognahay ayaa jira anu way ceelashaan qodi jiray qodaan dhuusa mareebtan ceelkii ugu horreeyay isagoo dhagaxan iyo ciid ka buuxda anaa ka baxshay oo gaalkaaga uga soo diray compressor baalka lagu aariyay 34 ceel baa ka wada midowga galgudud iyo alla ilaahay meelo kale way jiraan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe waa dhaweedo reegi soo batay maan iska dhigo waxaan haddeer gaalkaaga yaala intii ma dhagaagaan kuwa kale cusub baa yimido maxaa yeelay waa dhimiiran qofka ka shaqeeya shaqo kale ma qaban karo ilaahay wuxuu noogu deeqay maanta biyo badan iyo maarublaan waxaan qoday 320 mitir markaas intee duway waa alaabta igala harag iyo maarublaan waa tagaan nimaan u malaynayaa meeshu ku yaal 330 mitir baan waa meesha ugu ceelasha dheer wey waxaa loo baahan yahay wixii noo soo socdana ilaahay ha noo keeno waxaan haysanaa aan dhaqaalaysanno biyahana hal la ilaaliyo biyaha laguma ciyaaro biyaha inta qof baad arkaysaa tuuba inta iska fura biyihi iska socdaan anu marka wajiga dhaqaayo tuubada inta fura wajiga ku dhaqaan xiraa inta gacanta dambe u soo laabanayso biyaha saasaa loo dhaqaaleeya biyaha ha la dhaqaaleeyo qof walba waajib baa ka saaran in biyaha la dhaqaaleeyo wax kale laydinku kordhin maayo ceelashii solar baa laga dhigay motoor dabo qabqable ma jiro ceel kaloo badan waa la qodi doonaa laaman baa la samaynayaa sida wasiirku sheegayay oo mararka qaarkood lagu dabaasho haddii la rabo beero lagu waraabsado waxaa ugu muhiimsan inaan u jeesanno hadda inaan beeraha falanno beer waa muhiim magaaladan ka raadiyo goonkii waa waaye ma yaallaba warmayuu suuray adinkaa oge yaa magaalada roobka soo daay lama hayo quulihii lama hayo waxa naga lumay baa nooga daran war miri hal raadiyo dib baan u beeraynaaye bal hal raadiyo say ku soo noolahay abuurka hal raadiyo waxaan maaragtay aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii hay-ado badan iyo wasiir fiican oo noo jooga dowladda federaalka aad buu noogu dadaalaa runtii baladan ay wasiiradeennuna way u tageen wuuna la soo dadaalay ciddii noo dadaashana waa u mahadnaqaynaa arrin yar baan rabaa inaan soo jeediyo iga digniinoo mawduuceenna ka baxsan waayahan waxaan maqlaa ciidamada dhufays ka soo baxay oo xamar ku soo laabtay anugu ciidamadaas waxaan ku wargelinayaa oo ka codsanaya inay joogaan difaacooda dadka madaxda ahi ma laha dalka haddii difaacu xumaaday anugu waa soo joogaa iyadoo difaacu xumaaday oo magaalada xamar dhinaca kale u rogbatay dad badan baa ila joogeen xamar magaalo yar maaha haddii fawda ku bilaabatana waa dhimanaysa madaxda federaalkana waxaan u soo jeedinayaa inay shaqalada iska tiiriyaan ummadda ilaaliyaan oo ku celiyaan meelahooda ciidamada
intaasi waa iga fariin maadaama mikrafoon gacanta igu jiro inaan intaas gaarsiiyo ayaan u soo qaatay shiikha iyo waxay soo furayaan hadda ciyaal kale soolar lagu soo xiray dhaamkiina waa noo bilaabanayaan roobna ilaahay ha noo diiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.